Midowga musharaxiinta ayaa warqad cabasho ah oo ay ogeysiiyeen beesha caalamka sida IGAD, AU, EU, OIC, LAS, Norway, UK iyo USA waxa ay gaarsiiyeen xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Musharaxiinta ayaa warqadooda ku cadeeyay cabashada ay ka qabaan dowladda dhexe ee Soomaaliya, doorka beesha caalamka, nidaamka doorashada, heshiisyada siyaasadeed ee dhacay iyo qodobo kale oo amniga hoos tagaya. Warqadan musharaxiinta ayaa lagu sheegay inaysan diidaneen in dalka ay ka dhacdo doorasho isla markaana la dhaqangeliyo heshiiskii madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka, balse ay kasoo horjeedaan dhabaha loo marayo. Midowga musharaxiinta ayaa qodobo dhowr ah ku dul istaagay xasilooni darrada ka dhalan karta nidaamka doorashada ah oo la gafo ama la qabto mid aan ku imaanin iswadar ogol. Sidaa awgeedna waxay xasilooni darradaasi ay kaga digeen in madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya lagu daawado falalka ay sameynayaan. Midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya waxa uu walaac ka qabaa qar iska tuurka lagu wado nabadda iyo xasiloonida. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa aan si wanaagsaneyn ay u maamuleysaa doorashada 2021. Taasi waxa ay sababtay walaaca ayaa lagu yiri warqadda la gaarsiiyay xafiiska qaramada midoobay. Midowga musharaxiinta ayaa qoraalkooda ku soo koobay dhacdooyinka waaweyn ee dalka ka taagan oo ay u tiriyeen inay sabab u tahay dowladda federaalka, waxaana ka mid ah isku dhaca ka dhashay Hirshabelle ee ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Walwalka laga qabo askarta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee joogta gobolka Gedo iyo cabashada ka soo yeertay hoggaanka sare ee dowlad goboleedka Jubbaland maadaama lagu qabanayo doorashada kuraas ka mid ah kuwa ku soo aaday maamulkaasi. Qodobka saddexaad ee warqadda la gaarsiiyay beesha caalamka ayaa ah digniinta caasimadda ka soo ifbaxaysa iyo walaaca saamileyda, maalgashadayaasha ganacsiga, qeybaha bulshada, culimada, haweenka iyo dhalinyarada. Muranka ka taagan habmaamulka doorashada, guddiga doorashada gobolada waqooyi oo ay guddi u xil saartay xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, halka guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi uu magacaabay guddi kale oo ka hor imaanaya kan xukuumadda. 7 bishan aynu ku guda jirno ee December ee sanadkan 2020 Muqdisho waxaa ka dhacay shirka sanadlaha ah ee saaxiibada Soomaaliya. Inta badan khudbadaha la jeediyay waxaa diiradda lagu saaray doorashada iyo amniga dalka.